Allah u naxariistay magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska waxa ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo muddo u xanuunsanayay xanuunka coronavirus oo haleelay. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde waxa uu 16 Febraayo sanadkii 1938 ku dhashay magaalada Muqdisho waana ra'iisul wasaarihii 12aad ee taariikhda Soomaalida soo maray. Nuur Cadde waxa uu shaqadiisii ugu horeeyay uu qabtay amaba uu bilaabay qaybta customka ee magaalada Muqdisho waxaanu noqday sarkaal kamid ah sanadkii 1958 laba sano ka hor madax banaanida Soomaalida. Waxa uu sidoo kale kamid noqday saraakiishii booliska caalamiga ah ee Interpolka. Tababar ciidan oo dibadda ah waxa uu diray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre kadib markii uu soo dhameystayna waxa uu daraaseeyay kulliyadda sharciga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale iskuulka lagu magacaabo Fiscal Law oo ku yaala magaalada Roma ee caasimadda Talyaaniga. Waxa uu noqday kolkii ay dhacday dawladii kacaanka ee Soomaaliyeed 1999 dalkuna uu burburay. Waxa uu noqday xogayaha guud ee ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed xilkaasi oo hayay muddo 17 sano. ugu dambeyntii 22 November sanadkii 2007 waxa ra'iisul wasaare uu magacaabay madaxweynihii xilligaasi Cabdulaahi Yuusuf kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaarihii marxuumka ka horeeyay ee Nuur Maxamed Geedi oo 29 Oktoobar isla sanadkaasi asagu iscasilay. Marxuum Nuur Cadde markii uu codka kalsoonida ka helay baarlamaanka waxa uu waqti kooban kadib ku dhawaaqay xukuumad ka kooban 73 xubnood 31 wasiir 17 wasiiru dawlad iyo 30 wasiir ku xigeen. 17 December waxa uu isbedel ku yareeyay xukuumadii ka koobnayd 73 uu ka sameeyay waxaanu magacaabay xukuumad cusub oo ka koobnayd 17 wasiir 5 wasiir ku xigeen iyo shakhsiyaad ka baxsan baarlamaanka xilligaasi. 10 Janaayo waxa wasiirada cusub ansixiyay baarlamaanka kadib markii loo codeeyay kalsoonina halkaasi ay ku siiyeen 223 cod waxaana ka soo horjeestay 5 xildhibaan iyo 2 mudan oo ka aamusay kalfadhigaasi. Nuur Cadde waxa uu udub dhaxaad ka noqday wadahadaladii dhexmaray dawladii iyo sidoo kale garabkii kamid ahaa maxaakiimtii saldhigtay Djibouti waxaana ugu dambeyn la dhisay baarlamaanka kooban 3 dhinac oo kala ah dawladii maxkamadaha iyo sidoo kale dadkii u dhaqdhaqaaqay bulshada. xafiiska ra'iisul wasaaraha oo uu qabtay sanadkii 2007 waxa uu baneeyay sanadkii 2009 kadib markii Djibouti ay ku doorteen madaxweynaha dawladda Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isna ra'iisul wasaare muddo kadib u magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Axmed Seki Ibrahim Samnis TV Hargeysa.